كنتو عنا ونكسن إذا لهانتينبا كنسو دوادا قراد كورية إيا برنامج كيني تجابي قرادكا channel كينا قراد كورية أياد كداوطا وغيبكا شبكة جود إنترلان دالان كوريا .com برنامج كتضبطكا وكان وجهري برنامج حريرة ونكون تجابين دون قرادكا إيو كل بهير أقوريت كاغو إنتا وجوغو وحنكسو قادنينا تجابة مسكحين هدي دمان سؤالها اللي aad ka jawaabto ka hor inta aan su'aasha saxda ah ku sheegin waxa tahay qof garaadkiisu aan u sareeyo waxaad ku wanaagsan tahay arrimaha sirdoonka iyo amniga qaranka waxaan kugula talinaynaa in aqoonta iyo garaadkaaga sareeya aad uga faa'iideyso hay'adaha amniga qaranka kuna soo dhawaada qaybta ugu horeysay ee barnaamijka toddobaadka waxa waliba bilowle waxay su'aashani ku bilaabanaysaa maalin maalmaha kamida ayaa adiga oo jidka maraya soconaya si caadi ah isaga lugeynaya wax ku dhibaya iyo waxaad ka warwarto midna aan qabin ayaad si lama filaana jidkii aad haysay waxaad ugu soo baxday saddex xaaladood oo ka argagax galiyay oo mid waliba isla markaas kugu soo beegantay waa ilmo yar oo dhaawaca oo lugta dhiig ka da'ayo nin aanad aqoonin oo xabadka rasaasi kaga taalo dhiig baxaya iyo si lama filaan ah saaxiibka oo lugta maska qaniinay midkee ayaad saddexdan dhibane caawin lahayd oo u baahan gurmad degdeg ah kee ayaa mudnaanta koowaad leh 7 second oo kaliya ayaad haysataa saad garaad kaaga u toojiso waxaan filayaa inaad ka jawaabtay ilmaha yar xagtin kaliya ayaa ku taala oo maha mid noloshiisa khatar ku ah sidaas darteed kuma jiro gargaarka degdega ah saaxiibkaaga masku qaniinina saacad ayaad haysataa inaad dhakhtar geyso wisna gargaarka degdega ah kuma jiro ninka xabadka rasaastu kaga taal ayaa ka mudan gargaarka degdega ah waxaan filayaa sidaas inaad uga jawaabtay Faadumo waa ilmo yar iyadoo barandaha gurigooda ku ciyaaraysa ayaa ay dad cuni dhaawacay hooyadeed hadda waxay doonaysaa inay ogaato qofka jiiraankeeda ah ee eeyga iskale gabadhani waxay ku tidhi waxaan haystaa eey yar oo dhal ah oo aan ka boodi karin daaradda ninkana waxa uu yidhi anigu eey ma balihi kee ayaa been sheegaya caawi Faadumo hooyadeed adu maskaxdaada iyo garaadkaaga adeegsanaya waxaan filayaa inaad garatay oo ka jawaabtay waa gabadha tambeynta sheegaysa waxaana xaqiiqadu tahay waxay leedahay eey weyn oo guriga ugu qarsoon waana kan cunin lafaha gidaarka daaqadana gaadhay ee ku biyay dhareerkiisa xaaladani waa tu gurigaaga ka dhacday qoyskaaga dhexdiisa haddayse kula kulanto wayba timaado sidee ayaad u xallin lahayd ilmo yar oo ooyaya telefoon dhacaya tigsiga dabka kuu saaran ee dherigu kugu karaya oo daboolku ka dhacaya karkaraya roob daaqada kaaga soo gelaya iyo bisad ama mukulaal guriga idin joogta oo lugta kartoon la gashay maal garaadkaaga 7 second ayaad haysataa markasta muhiimadda waxa la xubnaha qoyskeena waxaanu muhiimadda koobaad siinayna ilmaha ooyaya waana qof kamid ah xubinta qoyskeena telefoonka ayaynu ka jawaabaynaa waxa laga yaabaa in xubin kale oo qoyskeena ka tirsan dhibaato haysato dheriga karkaraya gubanaya ayaynu daboolka saaraynaa waxaana laga yaabaa haddii sii socdo inuu qubto dhibaatana gurigeena soo gaadho kadibna roob daaqada inooga soo gelaya ayaynu iska muusaynaa si aan biyo intan ka badani guriga u soo gelin ugu dambayntana bisadeena amba mukulaasha ayaynu caawinayna waxaan filayaa sidaas inaad uga jawaabtay oo aad u kala horeysiisay saas bayna su'aashu sax ku tahay si fiican u eeg sirdoon kasta oo indho iyo garaad badan leh waa mid ka isticmaalay indhihiisa eegan xasuusnow weligaa isha ku hay kana jawaab su'aasha soo socota oo yuusan marnaba kaa lumin waxaan filayaa inaad si fiican uga buuxsatay adigoo 7 second aad haysato ka faa'iidaysanaya haddeerto soo saar eegi halkii ayuu kaga jira eedan waxaan filayaa inaad heshay eeguna waa kaas
libaaxan si fiican u dhugo u fiirso. hadda isticmaal garaadkaaga oo libaaxii ka soo dhex saar libaaxyada kale. waxaan filayaa inaad heshay. bisadan si fiican u dhugo. sirdoon kasta oo aragtiya ildheer leh waa ka dalkiisa iyo dadkiisa anfaca. hadda ka soo dhex saar bisadahan kale. waxaan filayaa inaad heshay. waana taas. waa mar kale xoorkan si fiican u dhugo. haddana ka soo dhex saar xoorarkan kale oo ku dhex jiro. waxaan filayaa in si dhib yar aad u garatay. dacwadan iyana si wanaagsan u eeg oo ka bogo. hadda ka soo dhex saar dacwooyinkan kale. 7 second ayaad haysataa. waxaan filayaa inaad garatay. ugu dambaynta waa kanguri. si wanaagsan ayaad u eegtay. haddeerto adiga ayay kula jirtaa ee ka soo dhex saar kuwan. waxaan filayaa in iyana aad heshay. waa shuqube. si wanaagsan u bogo oo u eeg. haddeerna ka soo dhex saar kuwan kale. waxaad filayaa inaad garatay. waxaad jawaabta noogu dhaafi kartaa kommentiga. haddana waxaad ogaan kartaa sababta ay shaqada sirdoonka muhiim ugu tahay aragti, dhugasho iyo garaad fiicani. geedi waxau yimi suuqa. si lama filaanana tuug ayaa ula kulmay isagoon ka warqabin. shandada uu lacagta ku wato ayaa u kala baxay. geedi markiiba waa uu dareemay. tuugise waa u baxsaday oo waa u orday. wuxuuna dhex galay dukaan. hadda halkan ayaa laysugu yimi. waxaana uu la raadinayaa tuuggii lacagta geedi xaday. 5 qof ee halkan taagan. midkee ayaad u malaynaysaa inuu tuuggii yahay? 1 minit ayaad haysataa. haddii su'aalihii kuwan ku horreeyay aad si fiican garaadkaaga u isticmaashay, labada su'aalood ee ugu dambeeyana si dhib yar ayaad uga jawaabi kartaa. barnaamijka kan ku xiga ayaynu kaga jawaabaynaa qofka uu dhab ahaantii yahay 5 qof kii xaday geedi. dise imika baad og tahay kommentiyahan noogu reeb. tariyada barnaamijka kan ku xiga waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.